Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan. Saaxiibayaal ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Haddaad ku cusubtahay kanaalkan fadlan subscribe noo saar. Sidoo kalena like ku harqi si ay dhiirigelin noogu noqoto. Mowduuceena maanta waa mowduuc cajiib ah. Armugam oo 60 jir u dhashay dalka Hindiya waxa uu caan ka noqday dalkaasi guud ahaan caalamka. Waa uu ku soo caanbaxay karinta cuntooyinka kala duwan kuwaas oo muuqaal laga duubo kadibna la soo dhigo baraha bulshada. Xaysiiskan ila dhugta saaxiibayaal waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu bartan idiin soo gelin doono barnaamijyo taxane ah oo toddobaadkiiba 2 barnaamij ama 2 mowduuc oo macquula idiin soo gelin doono. Fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada. Waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. wuxuu kasbaday qulubta malaayiin qof kuwaas oo ku taxan ciwaanada uu ku leeyahay YouTube-ka. Muuqaal laga duubo iyo cuntooyin uu kariyo waxaa YouTube-ka ka daawada malaayiin qof kuwaas oo aad uga hela raashinka uu karinayo Armugam. Raashinka uu kariyo oo u badan cuntooyinka dhaqanka dalkaasi Hindiya ayaa ah kuwo si wanaagsan uu kariyo wuxuuna ku kariyaa meelo bannaan ah mana jirto hotel. Shaqada uu qabto waxaa aqoonsatay shirkadda caalamiga ah ee YouTube waxayna siisay abaalmarino kala duwan. Armugam haddaba waa kuma Armugam? Armugam inta uusan bilaabin muuqaalada YouTube-ka uu soo geliyo waxa uu ka shaqayn jiray meelo kala duwan waxa uuna shaqoon yar ka soo qabtay meelo kale oo dalka Hindiya ah. Waxaan sidoo kale uu ka soo shaqeeyay ganacsiyo kala duwan oo ku yaala Delhi, Mumbai iyo Kolkata. Waxa uu yiri waxaan maqaaxi ku shidan jiray tuulada aan ka soo jeedo oo ku taala gobolka Tamil Nadu. Inkastoo markii dambe ay ga soo xirantay ayuu yiri. Wiil uu dhalay Armugam oo lagu magacaabo Kobit ayaa sheegay in aabihii uu weligii yaqaanay cunto karinta balse 2 sano ka hor uu ku dhiirigeliyay in muuqaal laga duubo lana dhigo baraha bulshada ay ku wada kulmaan. Raashinka uu kariyo waxaa ka mid ah bariiska, hilibka iyo digaaga. Ninkan 60 sano jirka wuxuu sheegay in shaqadiisii xilligaas oo ahayd rinji marinta guryaha uu iska dhaafay kadib hadalkii wiilkiisa uu kula dardaarmay inuu u wareego una xirfadiisa ku soo bandhigo YouTube. Wuxuu yiri Armugam oo bilaabay hadalka, wiilkayga ayaa igu yiri iska dhaaf shaqada rinji marinta guryahan ka samayno muuqaal cunto karinta balse anigu markii koobaad waan diiday. Ugu dambayna waan aqbalay. Bishii koobaad waxaan ka sameeyay ayuu yiri 5 muuqaal ayaan soo dhignay YouTube-ka waxaana ka helay lacag gaaraysa $100. waxaan isri waa lacag yar marka loo eego shaqada culus. Waxa kale uu sheegay in bishii xigtay uu muuqaalada cunto karinta ay ka heleen dhaqaale gaadhaya isku celcelis $560 oo ka fiicneed bishii hore balse bishii saddexaad waxa uu heleen Armugam iyo wiilkiisa $1,000. Armugam wuxuu yiri anigu xaaskayga iyo hooyaday iyo aabahay dhammaanteen waan wada garanaynaa cunto karinta marka waxaan u arkaa in YouTube-ka uu yahay halka ugu wanaagsan ee uu ku soo bandhigan karo aabahay xirfadiisa cunto karinta wuxuuna hubiyay waxa uu soo gelinayo inuu yahay wax wanaagsan dadkana faa'iido ugu jirto soona jiidan karto. Waa taas sababta soo jiidatay in dad badan oo caalamka ku nool ay aabahay muuqaaladiisa daawadaan. Armugam ayaa markii uu kariyo cuntada waxa uu sheegay inuu u qaybiyo dadka danyarta si uu uga farxiyo. Odaygan ayaa hadda dhaqaale badan bil walba ka sameeya muuqaalada cunto karinta uu soo dhigo YouTube-ka wuxuuna intaasi raaciyay in shaqooyin badan uu hore u soo qabtay balse haatan uu caan ka noqday baraha bulshada iyo guud ahaan caalamka gaar ahaan dalkaasi Hindiya. Dad badan oo daafaha caalamka ku kala nool ayaa lacag badan ka sameeya muuqaalada kala duwan ay soo dhigaan YouTube-ka. Dhaqaalahaas oo hadba ku xiran sida daawadayaashoodu ay u daawadaan muuqaalada. Waxaa adag in la arko dad ah oo sameeya shaqooyinka noocana. YouTube-na waxay u aqoonsatay qofka ugu wanaagsan ee da'dan jira ee YouTube wax ku soo bandhiga. Saaxiib waan ku rajeynayaa inaad adna YouTube samaysato oo xirfadaad leedahay ku soo bandhigto. aad iyo aad ayaad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Nooli kulantee barnaamijka fadlan subscribe naga ilaawin si ay dhiirigelin noogu noqoto. Fi amaanillah.